kulan galabta aad u adag oo dhex marayay kooxaha Waxool iyo Goodir ayaa ku soo idlaaday hal iyo eber ay hogaanka ku sii dheeraystay kooxda hogaanka haysta ee Goodir goolka ay ku badisay galabta waxa uu saxaxay ciyaaryahan Cabdicasiis Qucle oo haatan dhinacayga taagan Cabdicasiis sidoo arkaysa goolkaasi galabta natiijada go'aamiyada adigu dhalisay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Ilaahay baa mahadle waxaan kaloo mahadnaqayaa TV-ga Somaliland National TV wallahi horta alxamdulillaah rabbil caalamiin balanaay goolkan dhalina aad baan ugu faraxsanahay waxa weeyaan goolkana uu ahaa inaan hogaanka ku sii dheeraysano dabaaldegaygiina waxa nooga hadhay hal kulan oo kaliya insha Allah waxaan rajaynayaa kulankan inaan guuleysan doono hadii la helo saddex kulan ayaa hadhay 7 dhibcood oo saafin hogaanka wad ku qabateen kulamada idin hadhay maxaad rajaynaysaan ama idin qorshaysan wallahi kulamo waxaan hadhay 3 kulan baan hadhay saddexda kulan waxaan rajaynayaa inaan horta saddexda kulan ba guuleysano hadii la helaado insha Allah waxaan rajaynaynaa in dabaaldegno kulankan xigay inaan guuleysano biidmillaahi kariim kulankan maadaama aad u adkaad la ciyaariseen adiga kooxda Waxool ee ku ciyaarta magaca wasaaradda xanaanada xoolaha runaantii kulan aad adag ayuu ahaa maadaama hal yeebar aad ku badaseen kulankan intaydan ku soo bilaamin ama aydan go'aanka soo gulin waxaad ka filanaysaa Cabdicasiis kulankan wallahi kulan aad fiican buu ahaa tiimka Waxoolna kubad wanaagsan bay nala ciyaareen iyagana aad baan u hambalyeynaa anagu waxaan u soo galnoon inaan guuleysano guushiina wallahi alxamdulillaah rabbil caalamiin Ilaahay uu nasiiyay anagu xoolo kaliya inaan ku badino muhiim hankaygu waxa weeyaan koox walaal xaqan timaadaba waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano hadii la yiraahdo saddexda kulan harayna san hore kugu sheegay waxaan rajaynayaa inaan guuleysano biidmillaahi kariim insha Allah